kulan wacan wanaagsan qaarta wada nagala socota ibalba joogtaan iyo su'aalba noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada wararkeena ugu doorroona waxaa kamid ah TPLF oo la wareegtay magaalada istiraatiijiga ee Adarkay ee ku taala gobolka deegaanka Axmaarada iyo sidoo kale dagaal xoogan oo halkaasi ka socda dhinaca kale dawladda Itoobiya iyo ciidamada Eritrea oo iskarabsanaya ayaa dagaal xoogan waxay ka wadaan xuduudda u dhaxaysa deegaanka Tigreega iyo dalka Eritrea ciidamada militariga ee dalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea waxa ku adkaaday soo galida deegaanka Tigreega iyadoo dagaal xoogan uu wali ka socda halkaasi dagaalka waxa qayb ka duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn khasaare ba'an ayaana halkaasi laga soo sheegaya xog rasmi ah ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa dagaalkaasi iyo guulaha la kala gaaray xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa u muuqatay inay ku guuldareysatay dagaalka ay Tigreega iyo jabhadaha dalka Itoobiya ka dagaalamaya ay kula jirto waxayna baaq u dirsatay beesha caalamka oo ay sheegtay in laga soo gaaro Tigreega dhinaca kale wali dagaal ayaa ka socda gobolka Wallo waxaana gudaha la iskula soo galay magaalada Waldiya xog rasmi ah ayaan idinka haynaa ciidamadii halkaasi la geeyay ee ka socday dawlad deegaanka Soomaalida iyo dagaalada halkaasi ka socda khasaare ba'an ayaa la soo sheegaya waxaana xogtaasi oo faahfaahsan inoo haya saaxiibka daacad oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya daacad soo waan dhowahay Santiago dhammaan saaxiibadeena hawada nagala socdana waan wada salaamahayaa meel walba ay joogaan iyo xaalad kasta ay ku sugan yihiin haddii aynu ku bilowno dagaal xoogan ayaa ka socday maalmihii ugu dambeeyay gobolka Walqayd iyo sidoo kale gobolka Wallo oo dhamaantood ka kala tirsan deegaanka Axmaarada dagaaladii ugu dambeeyay Tigreegu waxay soo bandhigayeen guulo waaweyn oo ay sheegeen inay ka gaadheen waxay dhinaca kale ku eedeeyeen dawladda federaalka in ay adeegsanayso caruur yar yar oo dagaalka ay u soo dirayso dhinaca dawladda federaalka naftigeeda waxay Tigreega lagu eedeeyay in caruur yar yar oo 10 jir ah la hubeeyay oo dagaalka looga dhigayo moos isla markaana la iska soo hormarinayo bal xaaladda guud ahaan dagaaladii ugu dambeeyay ee ciidamada Tigreega iyo dawladda federaalka u dhaxeeyay xagee wax marayaan Santiago aad baad u mahadsan tahay inta aynaan ku soo noqonin xaaladda caruurta ee labada dhinac isku eedeeyeen iyo caruurta maanta TPLF ay soo bandhigtay saaxiibadeena aan dulmar ugu sameeyo xaaladihii ugu dambeeyay dagaalka maanta ka socdo meelaha la kala gaaray iyo sidoo kale guulaha ay kala sheeganayaan labada dhinac haddaan ku bilaabo magaalada Adarkay oo ah magaalo u dhaxaysa deegaanka Amxaarada iyo sidoo kale deegaanka Tigreega dhinaca kalena u dhaxaysa gobolka Walqayd iyo gobolka Wallo oo ku aadan dhinaca magaalada Lalibela ee taariikhiga ah ee u register gareysan ama diiwaanka ugu jirta hay'adda UNESCO maanta dagaal khadhaadh ayaa halkaasi ka dhacay ciidamada TPLF halka awood ayay ku sheegteen waxayna muquuniyeen ciidamadii militariga Itoobiya ee aagaasi ku sugnaa TPLF waxay soo bandhigtay qaybo kamid ah ciidamadaas oo maxaabiis ah goobo ay burburisay iyo sidoo kale baabuur ay kala wareegtay ciidamada militariga Itoobiya ee magaalooyinka Adarkay ku hareeraysan iyo sidoo kale tuulooyinka aagaasi waxaana la sheegayaa xilligan maghribka ah inay galeen magaalada Adarkay dhinaca gobolka Wallo waxaa la sheegayaa iyaduna in dagaal xoogan oo aan waxba la isku reebanin laguna hilbadiray labada dhinacna mid kasta awoodiisa halkaas uu ku soo bandhigay in ay maanta isu adeegsadeen waxaad moodaa dagaalku inuu hadda waji kala yeeshay oo ciidamada liyu booliska Amxaarada ee maleeshiyaadka faano iyo ciidamada militariga Itoobiya ee maalmihii hore sida hulhuleelka isu dhiibahayay in hadda ay jirto awood kale oo ay helayaan iyo sidoo kale maquunin ay sameynayaan iyo inay isbiimeynayaan oo dagaalka ay aad u galahayaan gobolka Wallo marka maanta waxa laga sheegay magaalooyinka inta u dhaxaysa magaalada Goobiye oo 19 kilomitir u jirta magaalada Waldiya oo ahayd meeshii TPLF ay qabsatay dhinaca kalena ay ku soo bandhigtay in ka badan 6500 oo maxaabiis oo kamid ah ciidamada militariga Itoobiya maanta in halkaasi shafka la isku aastay dhinaca kalena gumaad halkaasi uu ka dhacay shacabka aagaasi joogayna ay ku tasoobeen ama ku baabeen dagaalkaasi waxa la sheegay in aan wax natiijo ah labada dhinacba aysan kala gaarin TPLF na aysan guul gaadhin qoladan ciidamada militariga Itoobiya aysan gaadhin laakiin militariga Itoobiya xogaa dib loo soo riixay oo magaalada Waldiya gudaheeda la iskula soo dhaadhacay qaybo kamid ah magaalada Waldiyana waxa la sheegayaa in duqeymaha ay wax yeeleeyeen ama dhibaato ay soo gaadhay maamulka magaalada Waldiya meel magaalada korkeeda ama buur magaalada ka koreyso yuu ku shaqeynaya oo qaab ciidan military oo ku shaqeynaya magaalada gudaheeda way ka soo bixeen dhinaca deegaanka Canfarta dagaalo yar oo goosgoos ayaa ka dhacay buuraha Zobil markii la soo dhaafay xagga magaalada xagga deegaanka Canfarta gudihiisa loo soo dhaafaa dagaaladaasi iyaga laftigoodu wax guula labada dhinac kuma yeelan kala gaadhin TPLF oo ka hadashayna waxay sheegtay in furimaha hore ciidamadooda ay guul weyn ka soo hoyiyeen markaan u leexano furintan kale ee Walqayd iyo Humara oo ayadana dagaal hadda aad u adag oo labadii maalmood u dambeeyay ka socday kaasoo la isku adeegsanayay madaafiicda kala duwan la isku adeegsanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo diyaaradaha helicopterka dhinaca dawladda Itoobiya adeegsanaysay TPLF ay ku doonaysay
in ay gudaha u gasho gobolkaasi dhinaca kalena ay furto xuduud ay leedahay dalka Suudaan waxaad moodaa in dagaalkaasi lagu hilbadirirayo oo shacabka agaasi degan iyo ciidamada halkaasi ku degan Ethiopia ay geysanayaan ay yani isha awood badan ay helayaan iyo moral ay ku dagaalgalaan in kasto la sheegayaba in ilaa 5-7 xero oo kamid ciidamada halka meesha ay deganaayeen inay TPLF agta marisay oo ay gacanta ku dhigtay wixii halka ku sugnaa saraakiisha ay shalay soo dhigbanatay baana qayb ka ahaayeen ciidamada 11aad iyo sidoo kale 37aad TPLF aga waxay sheegtay inay guul ka keeni doonto waxayna TPLF markasta markay ka hadlayso gobolada Walqayd iyo Waqooyi ay ku doodaysaa maadaama uu yahay dhulkeedii oo ka maqan in ay guul ka keeni doonaan dhinaca dalka Eritrea aan soo gabagabeeyo dhinaca dalka Eritrea saaka dagaal Eritrea intana u gudbin daacadow goboladan hadda aad sheegtay gobolkan Walqayd iyo Waqooyi iyo sidoo kale gobolka Wallo xagee ka tirsan yihiin adiga oo dhageystayaasheena u bayaaminaya Santiago gobolka Walqayd iyo Waqooyi waxay jiraan dhankan xuduuda dalka Suudaan Eritrea iyo Ethiopia iska wadaagaan halka waxa iska gala deegaanka Amxaarada muran xoogan ayaa ka taagnaa 50 sano u dambeeyay mar Amxaarada qabsan jirtay mar Tigray qaban jirtay hadda Tigray uu gacantooda ku jiray dagaalkii dhacay 2020 bishii November qarxay kadib ciidamada huwanta ee Ethiopia liyo booliska iyo maleeshiyaadka Amxaarada iyo faanadu gacanta u galay iyagana gacanta ku hayo waa meelihii hay'adaha caalamiga ay ku eedeynayeen in ciidamada Ethiopia halkaas ay ka geysteen xasuuq aad u baan iyo barakicin iyo sidoo kale kufsi iyo wax dad xataa la soo bandhigay dad lagu guray wabiyada dhinaca gobolka Wallo markaan u imaano gobolka Wallo wuxuu isku xidhaa deegaanka Canfarta deegaanka Tigrayga iyo deegaanka Oromia qaybta la yiraahdo Liu Zonka dhinaca kalena gobolkaasi Wallo ama magaaladan Waldiya waxa isku xidha jidka Addis Ababa ka baxa waxa weeye Kombolcha iyo Dhasay iyo Waldiya si marto qoba halka ka gasho calaamad halka ka gashay halka ay maqal ka sii aado marka dhinacan Zobil marka laga hadlayana xaggan waxa weeye Canfarta iyo dhankan Djibouti dhinaceeda yay jirtaa oo xagga geeskaas ay jirtaa oo jidkan xadiidka ee isku xidha Addis Ababa iyo magaalada ay sheegeen wadanka Suudaan wadanka Djibouti macaayisha aan iraahday yaa isku xidho marka dhulka hadaan si fiican u ifino aagaas dagaal ka socda dhinaca dalka Eritrea marka aad haya dagaalka Eritrea magaalada Shireero Ageeru iyo waxa weeye magaalooyin kale aagaha safar badan iyo magaalada Adibayo dagaalo khadhaadh oo 4 jiha ah sida uu sheegay afayeenka TPLF Saakaba ayaa ka socday xogo aan ka helay dalka Eritrea gudihiisa iyo deegaanka Tigrayga iyo magaalada Addis Ababa waxay sheegayaan in halkaas lagu hilbadiray TPLF aagaas waxa la sheegay inuu ka soo gaaray jab aad u xoogan oo ay ku baaba'een oo ciidan iyo wax allaal waxay hayeen ay ku leedeen dhinaca ciidamada Eritrea kuwa Ethiopia iyagu laftoodu jab lama dhikaro wax gaadhayo meydkii baa waxa la yahay meel kala dhigo dagaalkaasi labada dhinac guul maysan kala gaadhin ilaa hadda ciidamada Eritrea gudaha gobolka Tigrayga kamaysan soo galin xuduuda wadanka Eritrea ciidamada Tigraygana xuduudoodana kama aysan gudbin iyagana ilaa hadda dhul roor leh lagama qabsanin oo labada dhinac way ku hilbadiranayaan laakiin halkaas waxa ka dhacay xasuuq aad u xoogan oo labada dhinacba ay ku baabeen oo wax allaale waxay tiri iyo tayahayeen ay ku baabiyeen ciidamada Tigrayga waxa la sheegayaa maanta in jabka halkaas ka soo gaaray iyo sidoo kale dagaalka furima halkaas ay kaga jireen daraadeed in ay xataa yareeyeen goobihii kale ee dagaalka kaga jireen marka laga yimaado magaalada Adarkay ee caawa ay la wareegeen وحقاق halkaasi waxa la sheegaya dagaalkaasi inay qayb ka yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn duqeymo xooggan ay ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Tigrayga bal xagee wax ka dhaceen diyaaradahan si xagee la beegsaday sideese la isku waafajin karaa dagaal infantry iyo sidoo kale duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Santiago sidaad ogtahayba ciidamada Ethiopia waxaad moodaa inay yihiin kuwa tabarbeel ah oo dagaalka infantryga ama dagaalka lugta ama dagaalka socodka ama dagaalka foolka la iska hor imaanayo aan guul weyn ka soo kordhinin dhinaca kalena TPLF mar walba gacanka ka sareysay la baabi'inayo oo gacanta ay ku dhigaysay saraakiisha ciidamadaas ugu sareysay maadaama arrintaas jirto dawladda Ethiopia waxay adeegsanaysaa hadda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale diyaaradaha helicopterka iyo diyaaradaha qomatiga oo kacaya craftiga iyo isha wax kasto awooda oo ciidamada Ethiopia ay hayaan diyaaradaha marka labada dhinacba khasaaro way sameyn karaan ma xilligan oo kale walibana ciidamada Ethiopia kuwa Eritrea way duqeyn karaan kuwa Tigrayna way duqeyn karaan laakiin inta badan ciidamada Ethiopia waxay ku beegsanayaan goobaha magaalada ama la filayo inay ku sugan yihiin saraakiisha ugu sarsareysa ee TPLF iyo dhinaca kale meesha laga hagahayo shaxda dagaalka ee ka socda gudaha dalka Ethiopia marka diyaaradahaasi Tigraygu aad bay uga qayliyeen waxay sheegeen diyaaradahaasi
in ay ku beegsadeen goobo waxbarasho goobo caafimaad kaniisado goobaha dadweynaha iskugu imaadaan iyo sidoo kale meel magaalooyin ah Tigreeg waxyaalaha soo bandhigayeen ama baraha bulshada dadka ay u soo bandhigayeen waxa kamid ah iyo TV-gooda wuxuu soo bandhigayay caruur yar yar oo 11 jir 12 jir 13 jir iyo haween meel qudaar iyo wax ka ganacsanayay iyo dad waxa way bagaashlayaal ah oo ku dhamaaday ama dhaawaca ama meydkoodii bay soo bandhigayeen waxa kale oo soo bandhigayeen goobo kaniisadaha la burburiyay dhinaca kalena dagaalku markuu socdo Tigreegu waxa way kaniisadahan iyo waxan goobaha cibaadaha la burburiyay caalamka qayla dhan u dirsanay waxay leeyihiin war nimanka naga soo gaadha waxa way goobihiiba iyo weerarayaan marka isku soo duuduub waxaad moodaa labada dhinac mid kasta inuu adeegsanayo falsafada gooni ah وهاك dhinaca kale dawladda federaalka waxa la sheegay ama xukuumadda Addis Ababa aan dhahnay waxa ka soo baxay baaq ku aadan in beesha caalamku ay soo gaadho xilli dagaal xoogan oo ka socdo gudaha dalka Itoobiya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay duqeymo geysanayaan gantaaladii ugu waaweyn la isku garaacayo ciidamada militariga Itoobiya naftirkooda aysan yareysanaynin oo weeraro joogta ay qaadayaan xulufadooda Itoobiya ra'iisul wasaare xulufadiisa uu u qeylyaday oo hadda Eritrea aad sheegaysiin dagaal ay ka wadaan dhinaca deegaanka Tigreega bal maxay tahay marka qeyla dhaantan mar hadii labada dhinac aysan waxba isku reebaninin oo dagaalku u socdo Santiago Eritrea ii sheegay dawladdan Ethiopia iyo TPLF labadooduba midna ma aamusahayo saacad kasto ay hadlayaan erayadooda waxa kamid ah nabadda waa in la ilaaliyo wada hadal waa in la iskugu yimaado colaadda waa in la soo afjaro dhinacyadu waa inay heshiiyaan dawladdu waliba aad waxay u adeegsanaysaa shacabka Tigreeg waxaan ugu baaqaynaa inay furimaha hore dagaal ka baxaan in ay waxa way TPLF ka xiraan inaan laga dhiganin waxa way ii sheegeen dhufays ama moos ama sidoo kale sunta baaruud inaan laga dhiganin oon holac la gelin dawladda Itoobiya marka waxaad moodaa xilligan maadaama xaalad adag oo dhaqaale ahaan wadanku hoos u dhacay waxa weeye diblomaasiyadda caalamkana hoos u dhacday gargaarkii dunida ka soo gaari jiray hoos u dhacay Mareykanku dhaqaalihii ka jartay midowga Yurub waa hore ay kala tageen Abiy Ahmed isagii laftigiisa uu aad uga cabsanayo in dambiyo dagaal lagu eedeeyo moral jabka ku dhacay ciidamada militariga Itoobiya goobaha laga qabsanayo ay tahay caqabad haysato aagaas oo dhan marka la fiiriyo labada dhinacba qayla dhaan bay dirayaan laakiin dhinaca Itoobiya hadda waxaad moodaa inuu soo karay dagaalku oo ay ku fashilmeen furimaha hore dagaalka dhinaca kalena ay doonayaan in caalamku soo kala gaadho iyaga iyo Tigreega oo miiska wada hadalka isku yimaad laakiin taasi waxaysan macnaba ku keenayn 7 bilood oo dagaalkan u taagnaa oo labada dhinac aysan dagaalamin ma jiro ilaa iyo hadda isku day kasta dawladda Mareykanka dhowr jeer baa waxay u dirtay khuburo ka socota caalamka waxay u dirtay xogahiyaha arrimaha dibadda xogahiyaha arrimaha Afrika u qaabilsan xataa saraakiil ciidan baa loo diray labada dhinac Antonio Guterres wuxuu u diray dad fara badan buu diray madaxa qaramada midoobay waxaa loo diray madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta intuu ka tagay magaalada Nairobi Addis Ababa ka tagay oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya la kulmay una sheegay in wada miiska wada hadalka isku yimaado waxa soo baahiyeen labada dhinac la wada hadalsi wixii oo dhan waa lagu guuldareystay marka qayla dhaanta hadda xataa ka soo baxaysa miiska wada hadalka la iskugu yimaado ka soo baxayso wax macna ma keenayso marka laga yimaado qayla dhaanta labada dhinac ka soo baxaysana Antonio Blinken xogayaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykankana saaka arrimahaas uu ka hadlay waxa uu sheegay inuu aad uga walacsan yahay dagaal ka socda gobolka Tigreega dhinaca kalena khatarta halkaas ka dhalanayso ee bilaadantinimo ay dawladda Mareykanka si gaar ah u dhibayso waxa uu labada dhinac ugu baaqay inay joojiyaan dagaalka miiska wada hadalka iskugu yimaado xaalkana sidan si ka bedelan loo soo rogo oo labada dhinac xaaladan hadda ay ku jiraan waxa way aysan sameyn dhinaca kale Antonio Blinken waxyaalo ku baaqay waxa kamid ah in dhinacyada dagaalamahayo ay ilaaliyaan waxyaabaha yaani lama taabtaanka sida dadka waxa weeye sheegeen aan dagaalka ku jirin goobaha cibaadada goobaha waxbarashada iyo taasoo macnaheedu tahay in duqeymaha diyaaradaha Itoobiya ay geysanayaan ay qayb ka tahay laguna eedaynhayo dhibaato ka geysta gobolka Tigreega waxgaag dhinaca kale dhageystayaasheena markii aan waramayno waxaad moodaa in laba dawladood oo isdagaalaysa aan ka waramayno Tigreega ama deegaanka Tigreegu waxay ka mid yihiin qowmiyadaha ugu yar dalka Itoobiya dagaalkuna wuxuu kaga furan yahay dhinacyo badan dawlado ayaa la dagaalaya oo Eritrea ay ka mid tahay dhinaca deegaanka Axmarada dagaal ayaa kaga socda ciidamada militariga dalka Itoobiya dagaal ay kula jiraan dhinaca Canfarta dagaal baa kaga socda Soomaalida naftirkeeda waxa la sheegay in ciidamo dirtay bal walina waxay soo bandhigayaan guulo ay ka gaadheen dagaaladii ugu dambeeyay ay la galeen maxaabiista ugu badnaa ay soo bandhigeen bal xaggee ka heleen awoodda inta dhan ee ay ku jabiyeen ciidamada inta dhan ee qowmiyadaha iyo sidoo kale ciidamadii militariga ee libaaxa Afrika loo yaqaanay oo isku tagay ay ku jabiyeen ayna u qabteen waxaan rabaa intaan arinta gelin horta inaan sawir guud ka bixiyo dadkan isdagaalahayo waa qowmiyadda Tigreega oo garabsanayso qabaa'ilada yararka ah ee Qimaat Raaya Ago iyo qabaa'iladan gobolka Wallo muslimiinta degan kuwa degan dhinaca Walqayd Humara qaybata ka tirsan Canfarta oo jamaacad Canfar la socota nimankan afayeenkan hadda u hadlahayo ay adarkaysa ee Getachew Reda asalkiisu Tigreeg ma waa nin ka soo jeeda Raaya
marka intaa marka laga soo tago waxaa dagaalamahayo dalkii Ethiopia ee 120 milyan ahaa oo dhan oo dhaqaalihiisa ciidankiisa maleeshiyaadkiisa liyu booliskiisa shacabkiisa warbaahintiisa hay'adihii kala duwana iyo wax walbo gacanta ugu jiray iyo waxaa dagaalamahayo dad ka yar 2 milyan oo waliba qoys jees Soomaalidu kala ka yar Soomaalida ka siyar Soomaalidu jeesaska Soomaalida marka la sii kala qaybiyo kuwa 0.5 ka lagu tilmaamo kuwa ka siyar yaa dagaalamahayo raallaan oo bulshada Soomaaliyeed tilmaanta ma ku qaadanaya inta marka laga soo taga marka maxay ku kala duwan labadan ciidan dagaalamayo labadan ciidan TPLF ama ciidankan Tigreegu waa ciidan maxastoodii haweenkoodii caruurtoodii ee jiritaankoodii umadnimo intaba la baabiyay wiilka Tigreega dagaalka ku jiro aabihii baa la dilay ama walaashi baa la kufsaday ama hooyadii baa la ii sheegay waxa way si xun loo dilay waxa laga yaabaa duqaymaha inuu aabihii ku dhintay wuxuu cunu laayay wuxuu xidhu laayay wax barashadii ka saaqiday dadkan dad waxay Ethiopia soo maamulahayo waxa weeye dhaqaale iska haystay marka hadda waxa weeye noloshiiba intay kartay ya hilbadirahayaan meesha ciidamada Ethiopia ee dagaalka ku jiro iyagoo balaayiina yay kala qoomiyad yihiin oo dad horta isku dhinac u socdo ma dhinaca labaad nin waxa weeye mushaar ku xisaabtamahay oo koosharooge iyo isqadla macaanti iyo waxa weeye raashinka agabka kala duwanaa ciidanka militariga Ethiopia la daba taagan yahay dagaal inta la ag buu wadi karaa waxa weeye aad buu yariyay dhinaca kale nin xaaskiisa islaanta ay soo wacayso leedahay war furin dagaalka ma joogtaa ha furintan jooga war iga dhimayna ay leedahay inta la ag dagaalka wadi karaa inta waxa ka sii daran shacabka Ethiopiaanka qaybo kamid ah yaa waxay wacayaan ciidamada ay leeyihiin inta dagaal ku dhiman la TPLF isu dhib marka ciidanku xitaa Ethiopiaanka moraal ay ku dagaalamaan ma hayo tan aanu soo noqdo marka waxaan ka waramayno laba dawladoodba meesha laba dawladood ma taale waa gobol yar oo dalka Ethiopia soo maamuli jiray 27 sano oo hubkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo rasaastiisa wuxuu dalka Ethiopia lahaa deegaankiisa geystay Tigreegu 27 sano hub iyo dhaqaale bay sameeyeen waxay baranayeen sida wax loo qarxiyo sida wax loo gubiyo sida loo dagaalamo ciidamadan Tigreega arkayso waa wada korneyladii iyo saraakiisha iyo jananadii iyo waxa weeye xataa dabla xataa kuma jiro wixii ciidanka Ethiopia xukumayay way ciidanka Ethiopia lagu lahaa waxa weeye waliba xaggeeska Afrikana nimankii lahaa ee samaystay way waxa weeye sulsulbida ka dhigtay kulba meesha rabaan ku galahayo Soomaalida ku baabiinayay 2006 intay ka soo dageen waxa weeye dhisaba xamar iyo Kismaayo iyo waxa weeye dhulkaas oo dhan ku qabsaday iyo reer markoodka ay dhaheen waxa weeye war waxaan xagga la keenay magaalada Madow la sheegi jiray reer Muqdishaadkana ay lahaayeen waa Axmar Madow inta markan kaga soo tagno dagaalkan marka labada dhinac Ethiopia hadda waxaad moodaa Tigreegu xaalad dambe u hadhay laba mid bay noqon doonaan Tigreegu inay baaba'aan oo tirtirmaan oo qof laga waayo iyo in xukuumadda Abiy Ahmed jabiyaan oo ridaan wagaag dhinaca kale waxaa la sheegayaa in ciidamo ka yimid dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida ay qayb ka yihiin dagaalahan hadda ka soo ama dagaaladan ka socda gobolka Wallo iyo gabi ahaanba deegaanka Axmarada bal maxaa ka jira ciidamadaasi la keenay furimaha hore ee dagaalka ee ka socday dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida adoo soo koobaya Santiago aad baad u mahadsan tahay dawlad deegaanka Soomaalida sidoo u yimid Aadan Faarax wuxuu sheegay in loo baahan yahay 5,000 oo askari oo Soomaali oo loo diro dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia odayaasha la kulmay salaadiinta la kulmay siyaasiyiinta la kulmay xildhibaanada la kulmay ciidanka la kulmay waa la isku mari waay laakiin ugu dambeyn 2,000 oo liyu boolisa yaa furimaha hore dagaalka loo diray sida aan xogta rasmiga ku helayno ciidamadaas xalay way ka sii baxeen magaalada Addis Ababa saaka wali furimaha dagaalka meena tagin laakiin markay tagaan waan soo gudbi doonaa saaxiibadeen iyo khiyaartana dhageysanayso laakiin waxa weeye meeshii ciidanka Ethiopia ku baabeen wiilal yar yar oo liyu boolis oo Soomaali ah oo dal iyo dad aqoon maxay ka qaban wax ka qaban adigu kulanta su'aasha dib kugu soo celiyo de waa may Soomaa marka isku soo duudubo liyu booliska meesha la geeyay meydkooda iyo dhaawacooda iyo dhimashadooda baa la fogeeyay oo xataa waxa weeye meesha ku dhimanayaan meel baas iyo jin iyo jaanay tahay waxa weeye waxba kama soo noqon doono kuwa aad iyo aad baad u maasantahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay daacad oo qayb ka ahaa barnaamijka aan idinku soo gudbinay halkan ee dagaalada ka socda dalka Ethiopia tan iyo kulanta daba daawadaal waxaan idinka tegaynaa amaana Allah